markii ugu horreysay nin adduunka joogaan ahayn laakiin hadda waxaan ogaaday ninka ragga hadduu reerkiisa u raadsanayo in uu raadsan karo. waxaan la soo xidhay dad aad u fara badan oo dadkooda raadinaya wallaahi ilaa 22 qoys ayaa imika xogta noogu jira oo dadka DNA-dan u diyaara xogtiisana aad ay u soo dhaweeyay calaamadaha sheegteen. maalintii reerkan helan waxaan doonaa haddii ilaahay ka dhigo sidan oo kale xaflad ku saabsan inaan ehelkayga helay inaan shacabka Soomaaliya meel allaale meejoon la wadaaganayaan doonaa haddii ilaahay ka dhigo aynu qoyskiisii saxda ahaa DNA-da laga qaado sidaana lagu ogaan doono insha Allah. Yusuf dad badan baan la soo xiriiriyay oo lahaa maadaama Yusuf maanta dad iyo dunya baanu haysan inay soo caawiyaan doonaya maadaama aanu lambar haysan waxaanu imika u soo furnay lambaro saadiyo iyo dahaba. yani waxaan ahay nin markii hore meel cidla ku tagay haddana waxaan la joogaa dal nabad ah oo aad iyo aad u fiican umada joogto ay fiyowdahay halka maanta aan joogo halka reerkayaan ku raadsan lahaa haddii 50 sano aan joogo hataa waxba uma arkahayo. kulan wacan mar kale saaxiibayaal meel kastoo aad daafaha caalamka ka joogtaan waxaa ku soo dhawaataan waraysi kale oo kooban oo la yeelan doono Yusuf oo ahaa 30 jirkaan dhawaan idin la wadaagnay qisadiisa isla markaana ahaa wiilkii baadi goobaya waalidkiisii ama qoyskiisiba. waraysiga maanta waxaa igula weheliya Yusuf Maxamed Cabdi Cali oo ah barasare oo wax ka dhiga jaamacadaha waaweyn ee dalka gaar ahaan kuwa magaalada Hargeysa. ugu horeyn waxaan soo dhaweyn doonaa Ustaad Maxamed oo markaasi ah ninka gacanta ku haya Yusuf. qoysas tiro badan ayaa Yusuf soo sheegtay isla markaana soo hadlay bal halka ay wax marayaan cidda soo sheegatay iyo waliba raadintii Yusuf aanu la raadinaynin qoyskiisii halka ay marayso. ugu horeyn soo dhawow Ustaad. waa mahadsan tahay Maxamed. بسم الله الرحمن الرحيم إلهي ومحله النبي أمان مدن عليه الصلاة والسلام. مركز حجة حنا مهد علنا تيفي هون كيبل تيفي. يوسف وربحنتي سال إذن لو ذا جيت ضوات كهر وكان يكتاجن. أنا كاسي مركز يمدي أنا جا رمضان تبلو جدي أو قصدي سيش هاجي تيفي ذن عن مركزي لحريسي. waxaan la soo xidhay dad aad u fara badan oo dadkooda raadinaya haddii Soomaaliya ahayna burburkii dhacay iyo dagaaladii dadka dad baa ka wada maqan marka Yusuf dad badan baa soo hadlay oo sheegtay dadkaana waraysi baan la yeelanaynay toddobaadka warkiisu ku jiray saxaafadaba mashquul aad u badan baanu galnay qofka markaa soo hadla waraysi baan la yeelanaynay waxaan weydiinaynay inaan ka lumay goobtu kaga lumay goortu ka lumay calaamadaha uu lahaa iyo xog badan marka dadku waa kala duwan yihiin dadka qaarna tuhun bay qabaan qof waa ka lumay dadka qaarna calaamaday noo sheegayeen waqti bay noo sheegayeen iyo xog fiican marka la soo ururiyo dad kooban ayaanu liiskareynay oo DNA-dan u diyaara calaamadahooda iyo xogtan la wadaageenay aad iyo aad u dhowdahay marka Yusuf waa joogaa waa iska fiican yahay Hargeysa joogaa dadkiisa uu la joogaa إن شاء الله حرجينا مر هره كل عضي إن يسوون DNA ده لقى قاعدين وأنا الله بسنين إنه قيس راعه أو قيس كيس النقوم ويا مركا إن شاء الله حرجينا إن إمك يوسف أي نقيس كيسي صح ها DNA ده لقى قاعده سيدنا لجوه عندنا إن شاء الله. qoysas ka markaasi Ustaad hayso markaasi imika tiro koobtay way mise qoys tiro ahaan والله إلى 22 qoys ayaa imika xogta noogu jira oo dadka DNA-dan u diyaara xogtiisana aad ay u soo dhaweeyay calaamadaha sheegteen calaamado sheegtay waxa weeyaan calaamadaha Yusuf leeyahay qaar kamida iyo waqtigii iyo goortii iyo goobtii marka insha Allah xarajeenana in Yusuf noo qoyskiisa helo qoysaska badan la soo xiriirna waxaan u sheegaynaa kulli mashquul badan baan galnay lambarada waxa laga yaabaa dhowr jeer nagu soo celceliyaan mar dambe ka qabanaynay marka waxaan u sheegaynaa in aanu dar Ilaahay hawsha ugu jirno in Yusufna hadii Ilaahay raahdo qoyskiisa uu heli doono niyadiisuna aad iyo aad u fiican tahay waa kan ag jooga waa idin la hadli doonaa wuxuu baan inta raacinayaa hawsha meesha fiican noo maraysa dadkiisa u raadinay ka soo Yusuf dad badan baan la soo xiriiriyay oo lahaa maadaama Yusuf maanta dad iyo dunya baanu haysan inay soo caawiyaan doonaya
maadaama aanu lambaro haysan waxaanu imika usoo furnay lambaro saad iyo idahaba waana u mahad celinaya Telesom iyo waxa weeyaan Somtel oo u sameeyay marka lambaradiisa shaashada idinku soo qori doona qofka caawinaya ninkaas waa ninka hawshiisa aad dhageysateen iyo warkiisa marka intaasaan kusoo gogoynaa waa mahadsantihiin saaxiibayaal bal markana waxaan soo dhaweyn doonaa Yuusuf soo dhawow maalintii hore weynagii halkan isku wareysanay xarunta Home Cable TV bal farqiga u dhaxeeya maanta iyo maalintii hore aan wareysiga ka qaaday muxuu yahay aad iyo aad baan ugu dhawaay Maxamed Suldaan iyo Home Cable maalintii hore iyo maanta wax isku jiha taamaha maanta waxa weeyaan waa maalin aad aan u faraxsanahay maxaa yeelay waa maalintii adduunka laga yaqaanaba markii ugu horeysay nin adduunka joomaan ahayn laakiin hadda waxaan ogaaday ninka ragga hadduu reerkiisa u raadsanayo in uu raadsan karo weli waxaan leeyahay dadka sidayda oo kale reerihii iyo burburkii reerahooda ka dhumay waxba ha cabsanin meel kasta dal kasta nabadgelida ka jirta intii u tallaabsataan reerihiina ka raadsada alxamdulilah aad iyo aad baa caafimaadkii buu fiican yahay si fiican baa la ii soo dhaweeyey Home Cable waa markii labaad mar saddexaad ilaa mar afraadna kaalan waan jecelahay maalintii reerkan helan waxaan doonaa haddii ilaahay ka dhigo sidaan oo kale xaflad ku saabsan inaan ehelkayga helay inaan shacabka Soomaaliya meel allaale meejoon la wadaaganayaan doonaa haddii ilaahay ka dhigo taadi kale dadku ay soo wacan waxaa la dhahaa nambarkaaga mee Telesom ya maanta nambarka seedka ay soo furtay iyo idahab maasha Allah iyagana aad iyo aad u hambaleynayaa taadi kale waxaan rajeynayaa sida shirkadda Telesom iyo dahabshiil iyo idahab dhamaantood waxaan leeyahay markii labaad oo codsi u jeedsado waxaan jeclahay in aad iyo aad ii garabisaan waan rajeynaa haddii ilaahay ka dhigo waayahay Yuusuf qoysas tiro badan baa oo daafaha caalamka jooga ayaa soo hadlay oo nala soo xidhiidhay oo markaasi Yuusuf soo sheegtay tiro koobka imika aynu haynay waxa weeyaan dhowr iyo 20 qoys oo astaamahaagii waxa weeyaan kuwa u dhow sheegtay maxaad rajeynaysaa Yuusufow والله horta dadka aad iyo aad ay soo hadleen waa la diiwaan galiyay Maxamed baa gacanta buuga ku haya cidkaas way soo hadashaa 21 qoys 21 ma raacayo hal qoys ma ka raac doona haddii ay ka dhigo waayahay aad iyo aad baad u mahadsantahay fariintaad ugu dirayso shacabka guud ahaan meel kasta dunida ka joogaan shacabkan fariintan dirsanay waxa weeyaan mar hore baan dirsaday haddana waan ka daba geenayaa tii baan diraato kale ma aha yani waxaan ahay nin markii hore meel cidla ku tagay haddana waxaan la joogaa dal nabad ah oo aad iyo aad u fiican ummadda joogto ay fiyowdahay halka maanta aan joogo halka reerkii aan ku raadsan lahaa haddii 50 sano aan joogo hataa waxba uma arkahayo hurdi raaxa laba iska seexdaa waan fiyowdahay waxaan codsanayaa inan baan dhalay iga dambayso aabihii dhalay waa aniga lacagna uma haysto gurina uma haysto mar horena waan sheegay waxaan leeyahay dadka inay si toos ah ii garab istaagaan maalintan maalin ka daran oo liis garab istaago ma laha waa hagaag daawadayaal kaasi waxa uu ahaa Yuusuf oo ahaa 30 jirkii aanu dhawaan idin la wadaagnay qisadiisa isla markaana ay soo sheegteen qoysas tiro badan waxaan rajaynaynaa Yuusuf inuu qoyskiisii helo oo Ilaahay u soo dhaweeyo sidoo kale walaalaha muxsiniinta ee codsanayay in Yuusuf telefoonno loo sameeyo si loo caawiyana waxaan leenahay caawaba waa loo soo sameeyay ciddii caawin karta ha soo caawiso meel kasta ay ka joogaan daafaha caalamka saaxiibada ku xidhan Home Cable TV-na waxaan leenahay aad iyo aad baa u mahadsantiin meel kasta ka joogtaan daafaha caalamka